halkani waa garoonka Hargeysa Stadium waxaana saaka si rasmi ah uga bilaabmay tartanka orodka ee marathonka loo yaqaano kaasoo ay ka qayb galayaan dhalinyaro tiro badan oo ka yimid gobolada kala duwan ee Soomaaliland iyo kuwa ajaanib ah oo ka yimid dalal kala duwan oo adduunka kuwaasoo iskugu jiray rag iyo haweenba waxaana soo qaban qaabisay shirkadda Dahabshiil Group oo ay iskaashanayaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland tartankan ayaa kala ahaa tartanka orodka dheer ee 42 kiiloomitir iyo 10 kiiloomitir waxaana markii uu bilaabmay dhalinyaradii ka qayb galaysay tartanka oo mid kastaba dhankiisu uu dadaal ugu jiray sidii uu noqon lahaa guuleystayaasha kaalmaha hore ka gala tartankani ugu horeyn wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boss Mira Maxamed ayaa markii ay kala guuleysteen tartamayaashu waxa uu halkaasi ka sheegay isla markaasina ka sharaxay muhiimadda laga leeyahay tartanka noocan ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa inay tahay waxaanu qabanaynaa bolisigoodii aynu ku shaqaynayno aad iyo aad baan dhammaantood u soo dhaweynayaa halkan aanu markii hore shahaadadaha inoo yaala halkan shahaadadaha dhammaantood dad badan baa leh dad badan laakiin halkan waxaanu ku guddoonsiinaynaa uun madaxweyne ku-xigeenka oo isla mar walba heegan u ah geestiisa Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo ku hadlayay afka mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ka shirkad ahaan ay markasta diyaar u yihiin dhiirigelinta dhalinyarada guud ahaanba dhalinyarada 42 kiiloomitir maxay ahayd ku tartantay iyo dhalinyarada 10 kiiloomitir ba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin hadafkiinu ma ahayn inaad dhammaantood guuleysataan laakiin hadafkiinu wuxuu ahaa in maxay ahayd qof waliba uu tijaabiyo inuu tartami karo inuu ordi karo inuu maxay ahayd caafimaadkiisa iyo noloshiisa soo kor u qaadaya oo maxay ahayd isku day karo inuu tartamo Dahabshiil Group ahaan hawshan muddaan ka soo shaqeynay gacan weyn runtii waanu ka geysanay mana aha sanadkii koowaad wad xasuutaan sanadkii hore waqtigan oo kale inaynu iyadana barnaamij qurux badan oo kan oo kala aynu tartan noocan sameeynay sanadkan insha Allah waa sanadkii labaad sanad walbana diyaar baanu nahay hadaan Dahabshiil Group inaanu sidan iyo si ka wanaagsan uga qayb qaadano dhankooda wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo madasha goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay waa maqlayseeno qoliyaha iyaga xusbiyada qaar baa lahaa Soomaaliland tartan noocan lagu qaban karo waa qaar nacab guusha Soomaaliland miyaan lagu qaban miyaynaanu taagnayn miyaan dadka ajnabiga ee dalalka ugu waaweyn ee Yurub iyo jaarkeena Djibouti iyo Ethiopia nagala soo qayb galin horeynu soconaynaa ninkii dib u soconaya isagay jirtaa inaynagu noqono dad ku soo baxa oo magaca Soomaaliland ku soo baxo ama kubadda ha noqoto ama orodada oo leenahay hibo u leenahay runtii orodada hibo u leenahay marka waxaan leeyahay dhamaanteen aan isku qabsano saynu u dhisi lahayn qarankeena magaciisa saynu u dhisi lahayn ciyaareen u dhisi lahayn saynu u dhisi lahayn inaan meel gaadhno aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan kala mahadnaqayaa dhammaan ciyaartooydii ka qayb gashay abaalmarino iyo hadiyado kala duwan oo ay shirkadda Dahabshiil Group ku maamustay tartamayaashii kaalmaha hore ka galay tartanka ayaa waxa noo suurta gashay inaanu darooyinkooda wax ka weydiino guuleystihii kaalinta koowaad ka galay tartanka 42 kiiloomitir iyo guuleystihii kaalinta koowaad ka galay tartanka 10 kiiloomitir halka dhinaca haweenkana aanu wareysanay guuleystaha kaalinta labaad ee 10 kiiloomitir magacaygu waa Ismaan Cilmi Sheer waxaan ku guuleystay 42 kiiloomitir yaan kaalinta koowaad galay aadna waan ugu faraxsanahay alxamdulillah waxaan u mahadnaqayaa macallinkayga Cabdirashiid oo dadaal badan igu muujiyay waxaan kaloo masaxaya walaalkayga oonan mar ilaawi karin marka alxamdulillah waxaan ka socday ciidanka gaashaan aad baan ugu faraxsanahay inaan kaalinta koowaad 42 kiiloomitir ku guuleysto horta magacaygu waa Xamse Bid Macallin farxadeed maanta aad iyo aad ma soo qiyaasi karo wallahi bal Ismaaciil wallahi kaalinta koowaad gal laakiin rag aad way joogeen laakiin nasiibaan kaga soo baxay yaa aad iyo aad noo farxay marii kaalinta koowaad aan galay oo soo yaacnay oo soo rafaadnay de guul baanu gaarnay insha Allah haweenka Soomaaliland guul baanu rajaynayaa inta carartay aan gaadhin inta ka soo noqotay aan kaalin gelin intaba guul baan insha Allah u rajaynayaa doorka dambe insha Allah kaalinta koowaad baa isku dayay waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa Stadium